kani waa xulkeena Soomaaliya waa xidigada yar oo soo baxay xulka qaranka wadankeena Soomaaliya waxa ammaan dusha laga saaray ciyaaryahanadii xalayto ka hor yimid xulka wadanka Congo Brazzaville waxay dhigeen wacdaro muhiim ah oo aad u soo jiitay taageerayaasha xulkeena wadanka Soomaaliya haddaba macallimu Nuur Amiin waxa dusha laga saaray ammaan u qalmo maadaama uu soo saaray xul tayadiisa aad u wanaagsan tahay isagoo dhiirigelin aad u ballaaran markaa sameynayay waxaa ka baxay juhdi aad u ballaaran macalinka Congo Brazzaville xalayto uu yaabay xidiga lagu magacaabo waa Cabdicasiis Cabdiraxmaan Bahour ayaa markaa xidig ka yaabsaday xidigihii reer Congo wuxuuna markaa yiri ma waxa la yiri xulkii 17 jirada qaranka Soomaaliya mise xul kale ayaa la ciyaaraynaa oo waaweyn oo daadayna markaa ka weyn macallin Nuur Amiin wuxuu sameeyay bedel aad u muhiimsanaa soo jiitay taageerayaasha xulka wadanka qaranka Soomaaliya oo dhaliyaasha markaa dhigtay meel kamid ah meelaha lagu gaxweeyo meel kasta sidoo kale dadka baraha bulshada aadka ugu caan baxay ayaa xalayto markaa aad u daawanayay kulli ciyaareedkii u dhaxeeyay Congo DR iyo xulka wadanka qarankeena Soomaaliya waxa xusid markaa mudan xidiga lagu magacaabo Idris oo isagana wacdara markaa ka dhigay xulkeena wadanka qaranka Soomaaliya wacdarihii ugu ballaarna waxa dhigay ninka lagu magacaabo Cabdicasiis Cabdiraxmaan Bahour kaasoo markaa xulka wadanka Congo xalayto markaa ka yaabsaday waxay markaa dhigeen xulkeena wadanka qaranka Soomaaliya wacdaro aan la filaynin kubadda aad u qurux badan oo aan laga caajisaynin marka la daawado waxaan markaa aniga qudhayda isdhahay maxulkii wadankeena qaranka Soomaaliya 17 jirada mise xul kale ayaa markaa daawanaysa mana garanaynin xilliga markaa ciyaarta ee dhamaatay saacadii way ugu idlaatay maadaama xulka uu muuqdo mid kubadiisa la daawan karo waxayna markaa ka qaab ciyaareedka aad kaga wanaagsan yihiin xidigaha wadankeena qaranka Soomaaliya markaa u ciyaara kuwa waaweyn oo waa 17 jirada markaa ka sareeya xalayto wacdarihii lagu dhigay Congo DR caalamka ayaa markaa ka yaabsaday iyadoo gabdhihii reer Algeria iyo sidoo kale taageerayaasha xulalka 17 jirada aad markaa sawirada kaga qaadanayay xidigaheena qaranka Soomaaliya kuwaasoo dadaal aad u ballaaran markaa muujiyay ciyaar qurux badan ayaa Congo Brazzaville laga yaabsaday xalayto xidigaha waxay leeyihiin ma jirka ayaa wax loo soo geliyay ragani rag muhiimsan iyaga ayaana faawulada ugu badan inta badan markaa lagu galayay ciyaarta waxay ahayd mid qurux badan halka xidiga qadbada dhexe ee Idris kubadda aad u qurux badan xalayto markaa uu ku caawiyay xulka wadanka qaranka Congo Brazzaville waa xul muhiim ah soo saaray macallin juhdi fara badan iyo dadaal ku bixiyay xulkeena wadanka qaranka Soomaaliya macallin Nuur Amiin waa ninkii markaa u qaaday koobka 17 jirada bariga Afrika waa barigii bartamaha Afrika kaasoo markaa ay kaga guuleysteen xulal dhowr ah oo Ethiopia iyo Uganda markaa ay dhigta markaa ka qaraaceen xidigaha kuwaasoo xaflada ballaaran markaa loogu sameeyay xidigahani waxay u baahan yihiin juhdi fara badan iyo dhiirigelin oo kaliya waana xidiga muhiimsan maadaama ay iska caateysan yihiin haddana waxay u muuqdaan kuwa aad markaa u dadaalaya oo kubad qurux badan oo dadka soo jeedinaysa markaa soo bandhigaya haddaba xidigaha aadka loogu baalka markaa saarnaa weerarkana markaa buuxinayay xidiga lagu magacaabo Cabdicasiis Cabdiraxmaan Bahour ayaa markaa ahaa xidig markaa 4-3-2 u gambinayay xulka wadanka Congo waa ka yaabsaday xidigan aniga waxaan u maleynayay in Ronaldo Lionel Messi Neymar Jr ee garoonka markaa ku jiraan warninka waxaa isdhahay ma Neymar Jr iyo Lionel Messi kubadda waxaad moodaa in Messi qaaradda Yurub markaa ka yaabsaday oo kubadda lugtiisa inay ku dhagantahay markaad moodo ayuu markaa noqday xidiga reer Soomaaliya ee 17 jirada waa Cabdicasiis Cabdiraxmaan Bahour waana xidigaha ugu muhiimsan xulkeena wadanka qaranka Soomaaliya xalayto kula ciyaareed aad u wanaagsan ayaa laga daawaday qaaradda Afrika
Afrika una dhaxeeyay 17 jirada oo markaa u malayso inay yihiin xul markaa waaweyn oo qaaradda Afrika markaa ka socda matalayana xulka wadanka qarankeena Soomaaliya. haddaba maxaa ka soo baxay kula ciyaareedkii xalayto? kulanka xiga waxay ku dhici doonaan xulka wadanka Senegal, waxaana markaa la leeyahay haddii Senegal markaa ay ka badiyaan natiijo aad u wanaagsan ayay markaa haystaan qaab ciyaareedka kubadda ay u reebanayaan, qaabka kubadda ay u ciyaarayaan, sidoo kale dadaalka ay sameeyaan. xalayto macalinka qadbada dhexe in laga maamulayo markuu arkay weerarkana markaa uu saaran yahay waa maskaxda kaliya iyo amaanta dusha markaa laga saarayo macalin Nuur Amiin qaabka markaa bedelka uu sameeyay, waxaana markaa ugu mahad celinaya kaaliyihiisa uu leeyahay aad baad u wanaagsan tahay. Baahuur waa kan waa ninka lama joojiyaanka oo aan la qaban karin xalayto, lama qaban karin xalayto. faawul ayaa lagu galayay, baalka waa ka soo xaroonayay, kubadda waa keenayay, adi meel ka geey ninka wax waa laga qaban waayay xalayto marka loo eego kubadda markaa uu ciyaarayay. xidiga lagu magacaabo Cabdicasiis Cabdiraxmaan Baahuur waa xidigaha ugu muhiimsan 17 jirada ee xulka wadanka Soomaaliya markaa ku matalaya. waa xidigihii ugu wacdaraha badnaa inta la xasuusto kadib burburkii dalka, waana xidiga markaa uu juhdi fara badan walow markaa macalinka la sheegay taageero fara badan ee dhiirigelin farxadeed. waxaa markaa u baahan yihiin xulkani in xafladooyin loo sameeyo dhiirigelin aad u ballaaran. waad aragtaan kubadda markaa Idriis oo dhiibayo waa ka yaabsayay qaabka markaa uu u sharxay iyo qaabka markaa uu dhiibay. gool qurux badan ayaana loogu shubay xalayto xulka wadanka Congo Brazzaville. waxaa la yiri annaga waxaan ahnay xulkii soo qaaday koobka bariga bartamaha Afrika. waad aragtaan cunug waxaa qeelinaya Algeria, sidoo kale taageerayaal fara badan oo xulkeena markaa ka socda quraanka markaa ku sugnaa. xalayto ininta iyo qosolka reereynta waa la isku daray qaaradda Afrika iyo guud ahaan sidoo kale Soomaalida inta badan waxay markaa ku sugan yihiin qurbaha gudaha. dhalooyinka ayaa lagu mashquulsanaa, qaar waxaa la sheegaya baawurada iyo meelaha markaa ka daawanayay oo markaa sugi la xilliga xaafadda markaa ay ka gaarayaan, oo dadka baawurta casriga ay waxyaabaha markaa ay ugu rakiban yihiin dhalooyinka oo kale laga daawan karo. aba dadka qaarkood waxaa la sheegay in mobilada markaa saarteen ayaa leeyahay baawurka oo markaa ay ka daawanayeen ciyaarto live markaa kaga socotay kanaalada caalamka ayaa markaa laga daawanayay. xulkeena waxay mudan yihiin oo kaliya ammaan ayaa markaa la leeyahay 17 jirada. waxaa leeyahay waa xidiga muhiima una baahan walow dowladda federaalka Soomaaliya dhiirigelinta ugu ballaaran marka ay ka heleen xulka 17 jirada kuwaasoo xafladooyin loogu sameeyay gobolka Banaadir. waxaa markaa sidoo kale u sameeyay madaxweynaha, ra'iisul wasaaraha, gudoomiyaha gobolka, dhammaan xiriirka kubadda cagta, wasiirka waa dhalinyarada iyo ciyaaraha ayaa markaa sameeyay. sidoo kale ayaa u sameeyay xafladooyin kala duwan iyo dhiirigelin casho sharaf. xidigaha waa la maamuusay, dhiirigelintoodana way soo bandhigeen, way muuqdaan. weli waxay u baahan yihiin oo kaliya in markaa juhdi fara badan lagu bixiyo oo dhiirigelinta tan mid ka ballaaran markaa loo sameeyo si markaa xulka waaweyn haddii iyagoo sidan iskugu haysta markaa ay u yimaadaan waxaa leeyahay waxay noqon doonaan xul markaa aan la loodi karin qaaradda Afrika iyo sidoo kale FIFA ka keena. waxaa leeyahay guulo wax ku oola. goolkan kaliya ayay qalad ku galeen oo lagu soo barbareeyay xulkeena wadanka qaranka Soomaaliya, walow macalin Nuur Amiin oo qiiliye uu leeyahay maxaa dhacay, maxaase qabanaysay, ninkani fursad ayaa siisay, waad ciriirisay laakiin kubadda maad iska bixisad ayuu leeyahay. macalinka xulka wadanka Congo markaas ayuu bedel wuxuu ku keenay bedel degdeg oo islahaa waxay keeni doonaan qaab ciyaareed aad u wanaagsan, laakiin waxba iskama bedelin. xulkeena wadanka qaranka Soomaaliya waxay sameeyeen juhdi fara badan. bedelkii uu sameeyay macalin Nuur Amiin wuxuu markaa aragay macalinkani inuu shaxda markaa bedelayo raggii xoogaa daalka markaa ka muuqday inuu bedel ku sameynayo. sidaa awgeed wuxuu keenay xidiga degdega asagana. عليها نكاني أدبو مركا الضوفي ما دام كبدا ولقت إنه كبح يالربا أنبو إزداديو كبدا صحيح نقول لهد لكن هو كبدا عكتا وحا لقى فلانين أيام مركا لقى كل ما سيدا أوجد وعقش سيفتا مركا كلاب حي معلنك حولكا ودنكا قرانك سوماليا تدبي تمن جردا يسيدو كلي نيكلو قمق عبد العزيز واد مركا وجيدان سيدو حديقها رير كونغو حريتو مركا أمريي
isagoo markaa la arkay isagoo ku dhex dhuumaraya Messi ayaa markaa leedahay ninka waxaan aniga islahaa war ninkan sidaa ma sameyn karo qaaradda Yurub ma joogo xidigihii Messi Ronaldo meesha ma joogaan raggan uu garbaha la galayo oo markaa ku ordayo sidee wax u jiraan laakiin waxaa arkay nin isku kalsoon oo kubadda ka dhex dusi kara xidigaha reer Congo aslaha Afrikadan waa xoogan yihiin xoogaa ama cunuga isku boosaan oo ay qabtaan laakiin wuxuu u muuqday nin ka dhex baxaya waxa isdhahayba Messi iyo Ronaldo ninkan ayaa markaa ka wanaagsan maadaama uu sameeyay waad u jeedaan sida xidigaha markaa u gidgidinay waa ka soo galaya walow la leeyahay wali wax yariisa kaliya ayaa markaa weerarka dhanka ragga caawinaya wax yariisa ayaa isfaham darro oo yar markaa ay ka jirtay macallinkana waxaa laga filayaa inuu markaa qaab ciyaareedka xidigan wax badan markaa ku soo kordhiyo oo xidiga isfahmiya aad isku fahansan yihiin oo markaa tababarka intay ku jiraan ay ku qaataan maadaama ninkan uu yahay nin baalkii weerarka soo galaya 3 xidig 4 xidig markaa ay celin karin waana soo xaroonaya ninka lagu magacaabo Cabdicaziz Cabdiraxmaan Bahuur waa xidigii ugu muhiimsanaa walow Idris oo isagana xidig kale oo markaa aad moodo inuu caato markaa yahay haddana qaab ciyaareedka iyo sida wax u soo bandhigayo waa waxa aan la maleysan karin maadaama kubadda uu gidgidinayo Mabirla meesha joogo masal Luka Modric markaa u ciyaaraya naadiga Real Madrid xidigahana way soo bixeen barnaanka ay ku yaalaan 3 sano 2 sano hadii ay joogaan waxay markaa muujin doonaan kuwa xulka wadanka qaranka Soomaaliya waaweyn markaa u safta oo 20 sano 4 sano hadii joogaan 23 waxay gaari doonaan marka 20 in ka sareysaadii ayay noqon doonaan marka waxay buuxin doonaan xulka wadanka qaranka Soomaaliya xidigaha dhalinyarada inta badan la kulma waxay heli doonaan taageero aad u fara badan amba waxa soo bixi doona 12 ciyaaryahan oo ka soo baxa 17 jirada kuwaas oo haatan qaaradda Afrika iyo sidoo kale dunida inteeda kale FIFA ay la yaabayeen xidigaha Soomaaliya markaa ka soo baxay iyadoo wadanka burbur aad u balaaran waa aragtaan Bahuur waa nin lama joojiyaan hadii kubadda laga soo gaaro ayaaba fursad iyo markaa loo haystaa ayaa leeyahay maadaama baalka uu iska soo xaroonay waxaad moodaaba in garoonka isaga markaa uu leeyahay ninka garoonka loo weynayo ayaa markaa la leeyahay maadaama garoonkaba markaa oo waxa leeyahay macili karo waad u jeedaa sidoo kaga tuuranayo marninkii beel ahaa oo markaa Inter arkay ayaa leeyahay waa iska tuuranaya kubaddii Barcelona oo markaa ka yaabsanaya Inter oo kale sidoo kale ka yaabsanaya macalinka wuxuu leeyahay waad gasheen gala xulkan hala taageero wuxuu u muuqdaa mid natiijo markaa keeni kara maadaama diyaar garow aad u ballaaran markaa ay sameeyeen xulkeena wadanka qaranka Soomaaliya waxaan leeyahay dhiirigelin hal loo sameeyo guud ahaan falaaqeyntii gaabneed aan ku soo qaadanaynay xulkeena wadanka qaranka Soomaaliya oo natiijo hor leh ka keenaya koobka bariga iyo bartamaha Afrika 17 jirada laguna qabanayo xulka wadanka Algeria guud ahaan waa nageynta xulka la dhiirigeliyo nabadgelyo Allah yow tusqaadnay tubta orodka dheeriyo baskid gacanta turiyo caalam wadaha tosiya oo tilmaanta bixiya guusha kama tagayni Allah yow tusqaadnay tubta orodka dheeriyo baskid gacanta turiyo caalam wadaha tosiya oo tilmaanta bixiya guusha kama tagayni kastaba ka badiyo tajirow allahayo taariikhda noo geli taariikhda noo geli